Assalaamu calaykum waraxmatullah. Waxaa la dhahaa asalka macaasidu waa 3: kibirka, digtooni la'aanta iyo xasadka. Kibirku wuxuu keenay inuu Ibliis Ilaahay caasiyo. Digtooni la'aantuna waxay jannada ka soo saartay Nabiyullaahi Aadam calayhi salaam. Halka xasadkuna uu keenay in Nebi Aadan carruurtiisii mid ka mida uu dilo midkii kale. wuxuu dhahay Luqmaan al-Xakiim isaga oo la hadlaya wiilkiisa: wiilkaygiiyo ruuxa naxariista waa loo naxariistaa, qofka aamusana wuu nabad galaa. qofka khayr ku hadla wuu qaniimaystaa, midka carabkiisa se ka adkaan waaya wuu ka shaleeyaa. haddaba qofka aakhiradiisa wanaajiya, Ilaahay ayaa wanaajiya adduunyadiisa. se qofka wanaajiya xiriirka ka dhexeeya isaga iyo Allah, Ilaahay wuxuu wanaajiyaa xiriirka ka dhexeeya isaga iyo basharka. waxaad ogaataa qof kasta oo la dagaalama xaqa wuu guuldarraystaa, qofka ka hela fikradihiisa wuu lumaa, qofka dadka iska weynaysiiya wuu dulloobaa, ruuxase dadka aan la tashada ma shaleeyo weligiis. qofka waxgaradka la fadhiista waxaa kor u kaca maqaamka iyo booska uu bulshada ku leeyahay, halka qofka la fadhiista dadka maangaabka ah uu hoos u dhaco maqaamka uu ku leeyahay bulshadu.